doonaa cashir ku saabsan sidee u ogaan karaa website-yada xunxun dadka iska leh iyo meesha ay joogaan. Waa cashir aad u qiimo fara badan. Cashirkan wuxuu ku saabsanaan doonaa website-yada xunxun ee waxyaabaha aan fiicnayn lagu soo daawaco, inaan ogaano website-kaas qofka iska leh, meesha uu joogo, xilliga uu isdiiwaan geliyey iyo telefoonka qofka uu isticmaalo. Waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Maxamed Kaasim Fiidow. Taariikhda cashirka la jeedinayo waa 14 bisha 11 2016. Waxaan kaa codsanayaa inaad ila socoto step by step insha Allahu tacaala. Marka ugu horeyso waa inaad ku xiran tahay internet access, inaad awood u leedahay. Marka labaad waa inaad soo kacsataa browserka aad isticmaalaysid. Markaa la soo kacdid tab ii fur. Markaan tab aan furto, website-ka aan isticmaali doono ama website-ka aan ku access garan doono waa w3 snoop. waa website-ka aan ku ogaan doono website-ka xun, qofka iska leh, meesha uu joogo iyo xilliga uu isdiiwaan geliyey. Marka intaa qorto, intaan domain name-ka intaa markaan qorto, waxaan dhihi doonaa click isi enter ayaan dhahay. Website-kii ayuu u geeyey. Website-kan wuxuu awood ku siin doonaa inaad ogaatid website-kaas cidda iska leh iyo information dhammaystiran. Meeshaan wuxuu kugu yiri type a domain name. Domain name-ka aad rabtid inaad ogaatid meeshaan geli. Website-kii markaad gasho, hadda aniga waxaan tijaabin doonaa website-kan magaciisa lagu magacaabo nolosha.com. website-kan bal ila eeg waxyaabaha xunxun ee soo post garanayo. waa wax qof muslim ah oo ku farsamooyin yar. Dumar waxay jecel yihiin igada. bal ila eeg 5 nooc oo shumis igada. war waxaan ila eeg subxaanaka yaa ilaahay. Website-kan waxaan rabaa inaan jaajuuso oo ogaado qofka meesha uu joogo iyo xilliga isdiiwaan geliyey iyo magaca qofka iska leh. Intaan ba waxaan dhihi doonaa copy. Marka intaan soo copy gareeyo, website-kii kale ee magaciisa lagu magacaabo w3 snoop baan imaan doonaa. www.w3snoop.com markaan imaado oo website-kan ii furan yahay, meesha ay ku qoran tahay type domain name waa text box laga rabo inaad gelisid website-ka magaca uu leeyahay ama domain name-ka uu isticmaalayo. Marka meeshan kali ku siiyo, waxaa dhihi doonaa past. Website-kan xunka ee waxyaabaha xunxun lagu soo post gareeyo waxa lagu magacaabaa nolosha.com. waxaan dhihi doonaa ku samee snoop. Marka snoop aan dhaho, wuxuu ii soo saari doonaa information aad u fara badan. Meeshan muxuu ku yiri nolosha.com. website-kan magaciisa waa kana. Information-kiisa muxuu yahay? Information-kiisa bartaan buu ku siin doonaa. Information-kiisa daily revenue maalin kasta wuxuu faa'iidaa website-kan $2. monthly revenue waa faa'iidana 47 ayuu faa'iidaa bishii. waayo waxyaabahan xunxunka ee uu soo dhigayo dad fara badan ayaa eegayo, xayisiin buu sameeyaa. Marka intaas baa shirkado kale lacag ku siiyo. Mastercard-kiisa ayuu lacag loogu soo diri doonaa. Bishii website-kan wuxuu faa'iidaa $559 oo dollar. Okay, meesha aan u baahana aniga inaan ogaado waa meeshaan. Who is information-ka domain name-ka waa nolosha.com. register-ka ama database-ka safarka oo isticmaalayana godaddy.com ayuu ka haystaa. waa kana registration name-ka qofka iska leh waa ninkan Mursal Sheikh Axmed baa la dhahaa. aad baan ugu xumahay inaad waxyaabahaas xunxunka aad ka raadisid macaash ama lacag. Information-kiisa waa kaasa. ninkan baa iska leh. inkastoo marka uu isdiiwaan gelinayay oo magaciisa iyo phone number-kiisa uu soo gelin, laakiin waxaa noogu filan qofka magacan leh Mursal Sheikh Axmed inuu yahay qofka diiwaan geliyey ama iska leh website-kan lagu magacaabo nolosha.com. fadlan ka daa dadka waxyaabaha xunxun ee aad ku soo baahinaysid. waad mahadsantihiin asxaabteyda, dhageystayaalkayga.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى